dee codkii baadna siiseenoo waa inaan idiin imanaayo waayihiinna ogaanaa ها نافك مركز شاب قلنا دلقا سنجري مكان تضابق وايش وربحنتي انا نقاد انها سوى ما نقاه القلم وايش وايش البر بانو قاي انا وحنا ما نقالين وحنا لما بيمسوا مدي way gaajoraysa hilibka ayaa ku qaaliyay marka masaylada anaga masaylada laamba ina nasalki laamba baayay lacag ma jirto xubay baqteeyaba marka saako dhan hilibku saasu baari kugu ku daylowni شاهم بعد يبينا سوكون يشرب مقلما سينس لباكم بعد كذي صبرتم حاجة مش باك عوي عليه باك عوي ليه باك عوي شاي مدوا باك عوي وحبة ويك أنا واحد اللي مش شيء كلموك عوضك عند وحبة ويك waxaweye madaxda waanu dooranaa laakiinse madax noo timaada oo nala dareena oo nala fadhiisata oo taa maxaad qabtaan waxaanu haynaa xildhibaan barkhad batuun waanu mahad celinaa waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro waxaan galabta runtii kormeer indhaindhana ku yimid suuqa waaheen oo bartanka magaalada Hargeysa sababtaan u yimidna waxa weeyaan inaanu kuurgalno cabashada sicir bararka saameeyay bulshada Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan caasimadda maadaama aad guuxu inta dambe u badnaa dumarka hilibka iibiya dumarka khudaarta iibiya bacadlayaasha bakhaarleyda waxaan u soo marnay inaanu xaqiiqda soo taabanno waxa bartan ka soo baxay laba arrimood basasho kale dalka lagama keenay Yaman baa laga keenay waxay gabadhaasi imika sheegaysay oo nooga warantay in basasha laga keenay Yaman markii hore cashuurtu ay ahayd $2 kiisho imikana $4 uu sii maray horta bartan waxaan baaq ugu diraynaa xukuumadda Soomaaliland annagoo afka shacabka ku hadlaynaa madaxweynahaanu la hadlaynaa madaxweyne waxaanu ku leenahay maciishadii ummaddu meel halis bay maraysaa cashuurta xukuumaddu waa in hoos looga dhimaa shacabka waa qodobka labaadna qolada ganacsatada iyagana waxaanu faraynaa maadaama xaalada baareed dalku galay maadaama sicir bararka dadku ayna qaadi karayn duruuftoodu soo ay tahay inay iyaguna waxay wax ku iibinayaan ay ilaahay uga boqaan oo hoos dadka u eegaan lama dafirayo oo ninka ganacsadii bariisku keenayo cashuurtii dekada gaarigii soo qaadayay shidaalkii dhan kastaba nolosha bulshada uu taabtay sicir bararka marka anigoo afkii shacabka Hargeysa ku hadlaya waxaan baaq dheer bartan uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu suuqa dhex yimaado suuqyada magaalada dhex maro shacabkiisa aan cidi uga waramin indhihiisa xaqiiqda dhabta jirta ee dalka uu soo taabto kadibna go'aamo masiiriya oo xukumiya oo digreta madaxweynaha uu soo saaro mudana madaxweyne dadkaaga dhex kaalay duruuftooda ogow la dareen noqo cashuurta qaaliga ah ee dadku ka cabanayaanna adaa mas'uulkii ugu sarreeyaya annagu fariinsidaan nahay fulintan adiga leh inta baan madaxweynaha u soo jeedinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iimaan ture ganacsade ontiyo daruurigu inta ay marayaan arag dawladayday inta ay marayaan arag dawladayday adeega caafimaadka ibiya doctorado adeega caafimaadka ibiya doctorado sidaan ilka ugu galay
galay ilka ugu galay sidaan ilka ugu galay baleeg dawladayda